عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا جمال كان كوبcinta garaadka carruurta leeshin raxma xuseen gabar walaasheen ayaa waxay noo soo weydiisay waxay dhahday abaa waxa ka soo warantaa wiilasha 6 jirka ilaa 10 jirka ka soo hadal bay dhahday marka waa xoogaa oo madax adag yihiin marka videoyaashan dhan si u badan yihiin ba intaas ay ku saabsan waxaa is dhahaa waa ila soo xiriiri kartaa haddii su'aashaas waxa u fahmo xoogaa cunuga markuu 7 jir bay badanaa waalidka ay la kulmaan xoogaa isbedel marka 7 jirkan aan rabaa inaan ka hadlo maanta waxaa laga yaabaa cunugaada waxyaabo badan oo hore uu arki jirin inaad ku aragto marka waxyaabahaas markaa ku aragtid oo isbedel oo imaado asa waalid ahaan ama macallimiinta ina markaas oo cunugii da'diisa u maraya waxaan waa wuxuu kibir u yeelay ma aha waa da oo socoto oo ka bixi doona marka mid kale anima dhaha cunug kasto 7 jir ah ayaa waxaan lagu arkaa laakiin ciyaalka qaar baa lagu arkaa qaarna ma sha Allah sidoo ahaana laakiin ciyaalka si u badan yihiin 7 markay gaaraan way isbedelaan marka waxa laga yaabaa waxyaabaha ku arki karto waxa laga yaabaa cunugaadi ma sha Allah ahaa inuu bilaabeen meel ay ka socoto ogaan markaas beenti markuu bilaabo asa waalid ahaan ama macallin ahaan inuu cunugii been uu ka soo harto inuu cunugii magaciisa been loo lagu dhajiyo taas qalad waa sababtoo beenta u sheegayo badanaa waxaa dhacdo carruurta markay 7 sano ay jiraan waxbay ka fikiraan imagination kooda isticmaalaan maanta oo dhan maskaxdooda waa mashquulsanta waxbay ka fikiraan wax isku daba rogaan wax marka badanaa wixii saxda ahaa iyo wixii oo qaladka ahaa ma kala saari karaan marka waxa laga yaabaa sheeko jirin inay ku sheegaan oo maskaxdooda la ka imaaday kadib anakina markaas hadaa dhahna been loo waabta been badnida hala soo been say ku kan waa qalad kale oo ku arki kartaa cunuga 7 jirka ah adoo la hadlayso oo ku ignore kare oo kaada markaas amal inaan ku xanaaqno ma aha oo dhahna hay anaa iyo saamiya inaan dhahno ma aha waa inaan ogaana waa sheeko oo adiga imtixaan oo ka qaadan way hadda soo weenaade xoogaa uu soo naado isku filanta amal xoogaa markii hore uu iska yareysamo hadda laakiin wuxuu raaynaa in adigu barmala ma baamala macalinka amal hadii oo shibka oo dhigo wax maqleen amal maxanaaqaysa maxaa dhacay barasho ku jiro adigu barna cunugaas markaas amal anaka waxaan la rabaa in aan cara amuujinin laakiin cunugu magaciisa oo wacd ma imaqleen miya waxa ku dhahay maxay ahayd oo si degan ula hadalno waxa kale oo ku arki kartaa cunuga 7 jirka ah oo kugu cusbanaan karo inuu cunugii maanta oo dhan mar faraxsiya marna ooyna mar oo faraxsiya mar problem oo abuura mar wuxuu taagan reerka dhan xaafada ku nool ma way jecel amal mar ilmaha uu la ciyaara mar bas marba nooc oo cunuga uu dhaqmaayo marka cunugii maadaama hadda uu soo weynaado xogaan soo kar marka isbedel ku socdo marka inaan u dul qaadano xanaaqsiin mar waa oonaya way oonaysaa wax iska dhigaysaa ina oo iska dhigaya in laga galdaray ama xanaaq adna cunuga asbuuxana adna ma la xanaaqays markaas amal waa soo wadaysaa ma soo qabanaysaa xaaladaha meesha ay fariiso meel oo degan oo jawiga dhan markaas uu ku xanaaqsan ka ahaan oo degan oo ama qolkaada meel kala aad meel degan afriisiinaysa kadib markuu cabaar fadhiyo xala halka si fadhi kadib sida anjelo videoyaasha hore oo soo sheegay warqad iyo qalin oo dhiibay xaalada okay sida la galdarnaa bal iyo qor yaa wax ku yaal bal iyo qor sida had kadib u dhaqmaysa iyo qor waxa laga yaabaa ciyaalka badanaa 7 sano markay jirin in wax qoraan waa laga yaabaa inay waxba qori karin waa laga yaabaa labadaba waa laga yaabaa marka cunugaada wax qori kara ma sha Allah laakiin haduu wax qori karina ku soo hartay haduu wax qori karin ma dhaheeso wax ma qori karo wuu har xariiqa
hariiqan oo leen xataa dooro ku qora waxay u tahay marka ii qoraalada kadib ada ii akhriyaalada laakiin adi marne dabeecadaadii bedelin sababtoo dabeecada uu asagu kula dhaqmaa ama iyada kula dhaqad way xanaaqday ama oo siisay darteed ama adi dhibaato adigii ku bedelin jadwalkaada iyo arrintaada iyo waxaad ku socotay taada leh hore ku sii wado waayo adiga waxaa kugu socda cashir in lagu bedeli karo iyo in lagu bedeli karin inuu hada kugu soo afceliyo markaasna waa si hore u sheegaydan waa lagu fiirinayaa radiyallahu ma ana sa'iladay ma aha cunugan waqtiga ku socdo wuu dhaafi doonaa sidiisii hore ku soo laabo doonaa bilooyin la ina socotaa laga wax yar la soconaysa intaas u dulqaado intaas maxaa maskaxdiisa korooso ha ka dilin niyada seeb waxaastaan ama iyada waxaastaan sida u caawin lahayd isku day kala laga yaabaa haduu cunugu ama isku dhigana ama dugsi dhigana waraba inuu fartiisa qurux badnaawo sidii la rabay wax u qoran marka saas darteed adina farxumo darteed cunuga ku caaynin ama farxumo darteed ku cinqaabin waayo wuu marayaa tudad markuu jiro insha Allah fartiisa qurxanaad ku tahay waxa kale oo laga yaabaa inaad ku aragto orod tira badan waxa kale oo ugu fiican aad sameyn kartid inaad weydiiso shir la qaadatid oo dhahdid maanta saasa sameysay adna ka hadashid sadarantay marka cunuga uu dagada oo dago had xanaaqi ka baaba wax dhan ka baabeen taas ma ifrax gelinin marka daqam xasanaysa insha Allah intaasaan ku soo koobaya waxaan rajeynayaa abaayo su'aasha soo weydiisay inaan ka soo jawaabo su'aasheeda iyo dadka dhamaan hada su'aal qabtiin oo soo weydii kartiin hada fikrad ku darsi kartiin oo 7 jirka saa loola dhaqmaa 7 jir dad badan ay wareeriyeen idinoo ku soo dari kartiin insha Allah 7 jir ka wada hadalna dhamaantiin waalidiin aan nahnay sababtoo ilmaha maskaxdooda la ilaaliyo waa muhiim waa maskaxdooda ilmaha la ilaaliyo waxa laga yaabaa wax yar oo cunug uu dhaafayo oo koriimo darteed oo isbedel yar ugu imaado inaan u aragno inuu cunug anaka noolada leeyahay ama inuu cunug kibir keenay ama wax le adi cunugi laakiin ma aha waa wax barasho u socoto iyo waqti uu dhaafayo waa marka insha Allah I hope ina patient noqono dhamaantan waalidiinta macallimiinta dhamaan ina patient noqono waa inaana ciyaalka mar walba aan ka wada hadalna sida hadda ugu wada hadalna aad su'aalihiina qurquruxda badan iyo dhiirigelintiina ma sha Allah aad u jeclahay mar walba waxay isoo qortiin hal kulli waa akhriya ma sha Allah jazakallahu idin dhahaya fikraddiina ku soo darsado insha Allah fikraddiina waa loo baahan yahay waayo video qofka oo fiirsanayo waa either oo yahay macallin inuu yahay oo rabo cunug ilma soo la dhaqmo la yahay oo rabo inuu la rabaan inay fiirsadaan ama waalid leewa waayo maxaa ka hadlaaya boo caruur marka waalidiinta iyo macallimiinta hadday isku fikrad darsan insha Allah waxa soo saareenaa caruur oo wax ما شاء الله وناكسن وهذه هذا وناكسن ما أها إنا سكنو إلا عنقين ماركنو أو كجارس ده تمنا ما تمن التطو إنا سكنو ما أها علما أنت يريرين إنا كوضا هذا الله جيت ك مركي لا أورايو السجو يرهدو قلعه ولا توسكر على كمركو ويناب سيلو توسي وين ويأكانسا ما أنا أهدتك وعرضته ما شاء الله هو وين أنا نيد إذن كدلاية معها لكن مرة بفرصة وحي كفي عن تعلم أنتو يريه هنا دقن كيس إيو دبعد محلي جرا إيو دقن كيس إيو دين كيس إيو وحي سلام إيو أخلاق كيس إيو مسكح كيس إيو مال سدا وفكرينه أنا جاي نحاسينا يوحو حرته كسيدرنا إنا مسكح العمل عرضته وفكرنا شير قري لايك قري هذا فيديو كهالشيء هذا كهلن ويلي بس شير قري وعيضتك لو حاليا أصحاب هذا يعني كهلايا كفائدة سنة مركز السلام عليكم ورحمة